بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. مرحبا البانada sharafta leh waad salaamantiin. Gudoomiyaha waa mahadsan yahay gudoomiyaheenii hore ee baarlamaanka tobanaad xilkiisa sharaf badan loogu wareejiyay xafiisyada iyo kullin waa booqan doonaa haddii alle idmo maanta ajendaheena wuxuu ku koobnaa xil wareejintaas kaliya waxaan ku darsanaynaa hoogo yar dirdaar ah yaan ku darsan doonaa insha allahu waxaan rabaa xildhibaanada sharafta leh horta marka koowaad mar labaad mar saddexaad inaan idin mahadcelino anigoo magaca guddoonka ku hadlaayo bartakoolka waxaa noo xil saaran noo wada xogayahani guud marka siduu u tilmaamay baan ku wadi doonaa gudoomiye ku-xigeenada biyaajida baan soo fadhiisanaa inta soo fadhiisan doonaan siduu sheegay hadda macnaha dirdaar iyo keliya aniga dhammaystiri doonaa waxaan rabaa marka koowaad inaan idin mahadceliyo xildhibaanada sharafta leh baarlamaanka 11aad sida sharafta leh aad noo soo doorateen oo maanta ilaahayna waafajiyay aniga oo nabad qabnaa inaan isku nimaadno golaheena ilaahayna gaarsiiyo alxamdulilah maxad dhammaanteed ilaah bay u sugnaatay dhinaca kale waxaan rabaa inaan idin cadeyno haddii ilaahay yidhaahdo maanta wixii ka horreeyey anagu wixii la soo maray oo maamulka afaarihiisa ah waxaa soo waday guddiga ku-meel gaarka ahaa anagu wixii maanta laga bilaabo ayaa golaha shacbiga xildhibaanadeena golaha shacbiga ayaa nagula xisaabtami doona in anagu hawsha bilaabaynaa saas koo mabda'iyaan inaad ogaatiin midda kale waxaan rabaa waad ogtihiin song maanta inuu ku egyahay iyo haddii kale beri inuu gaaro laga yaaba waa gebagebo soonkii maaragtay waqtigiisa yaa dhammaanaya ciida fooda nagu soo haysaa marka sidaa daraaddeed waxaan rajaynayaa ciidda kadib iyo isku soo noqoshada noqon doonta wax kasto arrin oo u baahan inaan saxno markaan isku soo noqono ayay ka bilaaban doontaa anagu hadduu ilaahay yidhaahdo waxyaalo yaryar inay jiraan waa lanoo sheegaya arrimaha sideedii anagu haddaan nahay guddoonka golaha shacbiga manihin dad tiim gaar ah u calaamo saaran baarlamaan golaha shacbiga yaan maaragtay anagu mas-uul u nahay horeyn waa u ballan qaadnay waa waajibaadka dastuuriga ana saaran si kalsooni leh daacadnimo ah ilaahay dartiisa baan wada shaqayn doonaa haddii ilaahay yidhaahdo wax kasto waajibaadkeena dastuurigan hadduu ilaahay yidhaahdo si dastuurka shuruucda dalka waafaqsan baan u gudan doonaa si madax bannaan ah horeyna markii maaragtay khudbooyinka ku jireen waa sheegnay haddana insha allahu dad isbedelayo ama koox gaara la safan doono ma noqonayno waxaan kale rabaa inaan idin sheego idinkoo raalli ah maanta warkama idinku fogeynaayo maadaama hataa gudoomiye ku-xigeenadayna hataa soo fadhiisan oo bartakoolkaas yar aan ku dhex jirno ajendahan uu ku kooban yahay keliya xilwareejinta waxaan isku soo noqon doonaa haddii alle idno bisha 4teeda ciidda kadib ajendaha ugu muhiimsan wixii kala soo bax waa arkaynaa laakiin laba qodob ugu muhiimsan dalku waad ogtihiin waxaa lanooga fadhiyaa annaga shacbiga soomaaliyeed indhaha nagu hayaan oo lanaga sugahayo doorasho xur iyo xalaala inaan dalku u qabanno taasaa ummadda soomaaliyeed naga sugaysa ogaada qodobkeena koowaad kaas waay marka maalintaas waxaan ka doodi doonaa miisaaniyadda oo ayadan haddaan la ansixinin miisaaniyaddii 2022 lama soo qaadin hoogo waa ogtihiin waxaa lagu jiray waqti yaroo fatir iska ah marka miisaaniyaddaas oo lanoo keeni doono iyo guddigii doorashada qabanqaabada doorashada madaxweynaha oo maalintaas aydan u tashanayno wixii kale nagu soo baxa waa arkaynaa labadaas qodob aan noogu muhiimsan waana bisha 4teeda isku soo noqonaynaa maanta shirkeen saasa noogu yeeyahay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh muuqa quruxda lama ruuxaanini mudan qalanjo style yamaliyooniyo kunka mudaniya imixun kaa jira maqanaha mahsan iyo midkaan wax ogeynow dantu waa mahuraane mudan qalanjo style aan micneeyay iga koobi mugaad sheegta mudan qalanjo style maankaa iga doomay mudan qalanjo style dhar weeye mug leh nadarkiisuna muuqdo midab inantii xirataa haddii mugdi la geeyo ifkeedaa ka muuqda qurux bacdaanidaaye argabartaan loo gedin dharkaas waa ku murugtaa qalanjo style mudan weeye mudan mar haddii ubadkaagu maanta ku ciidayaan farxad bay milkiyeen maalka deeqaye maalihiya leyliya ku miirsada dharka ciidda sanadkan ee mudan qalanjo style waa dhar isku darsaday qurux iyo tayo waana dharka ugu bilicda iyo nuurka badan dharka gabdhaha ciidda sanadkan mudan qalanjo style waxa uu ka kooban yahay saako ishcalaa ah xijaab nuur calaa nuur ah boorso qurux badan iyo taajka ubaxa ee qaataan qoyska boqortooyada weliba wuu ifayaa
dharka mudan qalanjo style waxa aad ka helaysaa goob kasta oo lagu iibiyo dhar ama ugu hagaag cadceed group ama la xiriir ciwaanada shaashada kaaga muuqda